Tuulooyinka ka mid ah nin ay xaaskiisu xanuunsatay xanuun aad u daran. Si degdeg ah ayuu dhakhtar ugu yeedhay. Dhakhtarkii ayaa u soo galay bukaankii si uu u baadho. Ninkeygii ayuu ka dalbaday inuu dibadda ku sugo. Waqti yar kadib, dhakhtarkii ayaa ka soo baxay qolkii. Ninkeygii ayuu ka dalbaday inuu u soo qaado mindi af badan. Ninkii ayaa ka naxay dalabkii dhakhtarka, wuxuuna u sheegay inuu hayn wax mindi ah. Dhakhtarka ayaa ku noqday qolkii. Mar kale ayuu soo baxay, wuxuuna ka dalbaday inuu keeno dubbe. Ninkii wuxuu la yaabay dalbaadkan dhakhtarka ee cusub, laakiin wuu u soo qaaday wixii uu doonayay. In yar kadib, dhakhtarkii ayaa soo baxay, wuxuuna ka dalbaday miinshaar. Ninkii waxa uu dareemay cabsi iyo argagax. "Dhakhtarow, xaaskaygu miyay fiican tahay? Waxaan u maleynayaa inaan geynayo dhakhtar kale. Anigu kuma faraxsanin waxaas oo dhan." Dhakhtarka ayaa qoslay, wuxuuna yidhi, "Miinshaarta iyo dubbuhu xaaskaaga shaqo kuma lahayn. Laakiin waqtigaas oo dhan waxaan isku dayay inaan furo boorsadeeda khaaska ah."